xildhibaanada golaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxay dhageysteen khudbadaha murashaxiinta xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle. Murashaxiinta ayaa khudbadaha waxqabadkooda 4 sano ka horjeediyay xildhibaanada, waxaana tirada murashaxiinta ay gaaraysaa ilaa 4 murashax kuwa u tartamaya jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle. goobta hadal jeedintu ka socotay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Hirshabelle isugu jira wasiiro iyo xildhibaano maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. murashaxiinta khudbadaha jeediyay ayaa kala murashax madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, murashax madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere, murashax madaxweynaha Hirshabelle Cali Gudlaawe Xuseen, murashax madaxweynaha Hirshabelle Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan. marna fatahaad ay u baabiyaan dalagii iyo wixii soo baxay baabiyaan sida darteed biyalaantu meesha ka jirta in ceelo loo helo adeegta iyo adeega camadka intaas ka shaqeyn doona hadii ay raali ka noqdo. waxaa ogtiin 4 sano la soo dhaafay ma suuragelin telefishin iyo idaacad ama raadiyo oo leeyahay dowlad goboleedka Hirshabelle insha Allah hadii ay raali ka noqdo oo ay suura gasho ama baarlamaanka sharafta loo wiilo galada 4 sano inaan hogaamiyo dowlad goboleedka Hirshabelle boqolka maalmood ugu horeeyo telefishin iyo idaacad ay leedahay dowlad goboleedka Hirshabelle oo ugu doona hadii ay raali ka noqdo. hadda waxaan u maleynaa xildhibaanadii hore inkastoo hadda aan isleeyahay boqolkiiba konton waa ka soo noqotay kontonkii kale waa cusub yihiin. haddaan ka hor madaxweynaha idiga soo doonto waa ogtii madaxweynihii markaa idiga soo doontaa dee waa ku siinayahay tiri nimana siinaha. hadda bicii waa idiga raqiisiyo nimankaana madaxweynuhu ee ku culus yahay siriya hadda xumaana lagu diiday waxyaalahaas markii la helo ayaa go'aanku ka dambeeya arrin noocaas ah isticmaala. sidaad ku aragteen halkudhigayga wixii tagay tiigsimaad ma leh, dowladnimadu saakaarays ma leh. aniga ma soo qoran cadaaladiisanaan ilaaha bixin kara bini'aadan ma bixin karo. hadi jawaab qaldamaya ay leedahay wax weyn ku dhex xibaarsantahay midigay bidixi ma ka maarantaa ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantii waa maya. assalaamu calaykum. Yusli Maxamed Axmed, Bulsho TV, Jowhar.